oo waxa weyn haddii isbedelka u codaysaan in kontonka unit ee u horeeya free laga dhigi doono dowladda hoose tahay iyo haddii dekada tahay iyo haddii haamaha tahay iyo haddii laamaha kale dowladda tahayba waxaan dareemaynaa oo waxa weyn fariimo aad noo soo gaadhayeen in cadaadis badan shaqaalihii lagu hayo sida shidayare gooladii shidayare oo kale waxa weyn arrinka shaqaalaha muruqmaalka ee dekada arrinka muruqmaalka ee shaqaalaha dekada waxa weyn cadaadis badan baa lagu maanta oo taariikhdu tahay 29 bishii tobnaad waxaan rabaa halkan inaan dhowr qodob kaga hadlo oo igu horeyso maadaama aan ku dhex jirno maalmihii campaign-ka waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto waxa weyn dhowr qodobka ugu horeeya waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliland aan ugu baaqo maanta maadaama aan waqti doorasho ku jirno inay nabad ku codeeyaan in nabad ku soo banaan baxaan oo waxa weyn ay hawlaha ammaanka ay aad uga la shaqeeyaan ciidamada booliiska maadaama aynu cadu badan leenahay shacabkana waxa leeyahay wax cunfi ma jiro waxa lagu tartamaya saaxadda siyaasadda oo ah in systemkan hore la bedelo system cusubna loo guuro inta kale lagu tartamayo taas shacabkana waxa lagu baaqayaa inay codkooda u dhiibtaan ee aanay waxa weyn falal amaan darro ah aanay ku kicin talabaad waxaan rabaa inaan iyadana halkan kaga hadlo qodob muhiim ah oo waxa weeyaan u baahan in la dul istaago oo inaguna magaalada Berbera aan maanta ka hadlayo waa magaalo badan shaqaale haday dawladda hoose tahay iyo haday dekada tahay iyo haday haamaha tahay iyo haday laamaha kale dawladda tahayba waxaan dareemaynaa oo waxa weyn fariimo aad noo soo gaadhayeen in cadaadis badan shaqaalihii lagu hayo waxaan leenahay shaqaalaha waajibkiina guta waa ogtiin waxa weyn haddii ay tahay institutionska dawladda cadaadiska leen ka hayo waan ognahay kaliya waxaanu systemka kaga baxaynaa waxa weyn waa inaynu isbedel u codeyno shaqaalaha cadaadiska lagu hayo haday dawladda hoose tahay iyo haday dekada tahay iyo haday haamaha tahay iyo haday hay'adaha kale tahayba waxaan leeyahay u dulqaata muddo yar bay noo hadhayada gacanteena inuu kaga ciil baxaynaa oo inuu ku bedelaynaa systemkan arrinka labaad ee raba inaan ka hadlana waxa weeyaan sida xeerka anshax xidhigayo in gaadiidka dawladda iyo wax kasta oo dawladdu leedahay bay la dhigo waxaan laakiin ognahay magaalada Berbera in labadiiba lagu isticmaalayo gaadiidkiina lagu isticmaalayo dawladdu lahayd meelihii public ahana si ka baxsan anshaxii loogu adeegsanayo oo haddii aad arkayso banneriska la taagayo sida shidayare gooladii shidayare oo kale waxa weeyaan si khadda loogu ololeynayo kuwii kale iyaduna garanwaaga iyadana si aan sharciga waafaqsanayn lagu ololeynayo marka waxaan leenahay war xeerkii anshaxa ee reebaya wax kasta oo dawladdu leedahay lagu ololeeyo ha shaqeeyo baaqa labaadan Berbera u diraya waa hal xidhaale baaq maaha waa hal xidhaale waxa xisbiga wadani miiska u saaran oo waxa weeyaan barnaamijkiisa kamid ah waxa weeyaan aan miiska la fadhinaa in shacabka reer Berbera maadaama muddo dheer leer ka cabanayeen leer ka wax looga qabto number 2 waxa barnaamijka diyaar ah oo waxa weeyaan haddii isbedelka u codaysaan in kontonka unit ee u horeeya free laga dhigi doono oo ay damaanad qaadi doonto xukuumadda ka dhalan doonto xisbiga wadani iyo waxa weeyaan xisbigeedu arrinka waxa weey Berbera waa bushaara ay u soo jeedinayaan hal xidhaalo laakiin wuxuu dul yaala reer Berbera leer dambe oo ka cabanaysan ayaanu jirin haddii aad abaalmarin u siisaan xisbiga kulmiye xukuumaddiisa in mar labaad codka siisaan waxay ka dhigantahay inaydan dantiina garanaynin wadani wuxuu idin ballan qaadaya kontonka unit ee u horeeya bil kasta in bulshada looga dhigi doono free koob iyo konton wixii ka bilaabmo noqon doono la charge gareyn doono waa isbedel muuqda waa isbedel wax qabanaya waa isbedel bulshadii taabanaya uma baahnin in waxa weeyaan bulshada caadifadeeda la kiciyo oo si qaldan looga faa'iideysto waxaan u baahanahay waxa weeyaan reer Berbera iyo guud ahaan Soomaaliland oo maanta gacantiina ku soo noqotay inaan isbedelka hormood ka noqono talabaadan raba inaan reer Berbera ogeysiyo cidaan dareensanayn maxjarkeennii weynaa Berbera waa aragteen indhihiina ku soo arka waa la balooraystay rag hebel la'aaba balooraystay hantidii aynu lahayn ee reer Berbera ee waxa weeyaan ilaa iyo intii dawladaha Soomaaliya dhasheenba Soomaaliland iyo Soomaaliya intii ku jirnayba intaba waxa weeyaan
dee waa hanti aynu lahayn oo aynu caami noo ahayd laakiin maanta shakhsiyaad baa yeeshay waad arkayseen nidaam xumada lagu wado marka dee waa fallaadhin hortaalla reer berbera waxaan leeyahay war ka cuna kulmiye oo wadanina codka ugu siiya markaasay isbeddel horseedaysan waxaynu u baahannahay inaynu fikirno oo dantayna garanno waxaynu u baahannahay inaynu magaaladeenna waxay noqoto magaalada caasimad ganacsiyeed waa ogtiino istaraatiijiyadii ku taallo berberi waa lagu soo taamaya laakiin rag baa ka shaqaynaya sidii berbera looga kaxay lahaa ummadda waxaanu leenahay reer berbera war maanta isbeddelka idin yaalla war maanta waxa weeyaan gacantiina ku aarsan karaysaan war waxaan oo showayaan leedo tusin war lacagtiinii weeyaan 7 sanadood leedinka haystay maanta ninka 7 sanadood intuu idin shaqay sida gafana haddana idin la maanta igu abaal mariya haddii damiirkiinu nool yahay waxaan idin leeyahay arrinkaa ka dhiidhiya isbeddelkana horseeda dantiinana raaca waan arkaynay shalay tolin shaqaalaha dawladda waxa la khasbayay waanu arkaynay in loo caga jogleynayay shaqaalaha sharafta leh waxa weeyaan magaalada jooga waxaan leenahay isbeddelkii waxa ka hadhay muddada yar ee kooban ee dhowr iyo 10 cisho xukuumadda Muuse 7 sanadood oo gacanta ku haysay dalka waa ogtiin waxyaabaha geysatay inay dhaqaalihii ummadii ka xidhay in waxa weeyaan caafimaadkii waxa uu liito in hooyooyinkii waxa weeyaan ay cidlo ku umulayaan marka waxaynu u baahannahay inaynu arrinkaa ka dhiidhino oo waxa weeyaan isbeddel dhaba ka muujino run ahaantii aad baan idinku mahadnaqayaa shacab gobaatihiin shacab waxa weeyaan qiimo labaatihiin laakiin fariinteeda qaada fariinteedaas waxay daaran tahay war waa mustaqbalkiina shilimaad yar oo la qaybiyaa maanta wax allaale wuxuu ku soo kordhinaya ma jirto bulshada waxaan u baahnaa inaan isbeddel dhaba sameeyno xagga leydka ay tahay waxa bishaarada xisbiga wadan idin hayo xagga caafimaadka waxa way program set oo dhameystiran idinka hayo waxbarashadii adeegii bulshada marka reer berbera waxaan leeyahay idinka idin hortaala fallaadhaasi haddii ay u codaysaan oo mar labaad siisaan kulmiye idinka gacmihiina isku ersaday haddii isbeddelka u codaysaanna idinka gacantiina barwaaqo ku galay waxaan rabaayo kaloo inaan si iyadana mugla uga hadlo arrinka shaqaalaha muruqmaalka ee dekedda arrinka muruqmaalka ee shaqaalaha dekedda waxa weyn cadaadis badan baa lagu hayaa waxa lagu hayaa tacaddi badan waxaanu leenahay inta isbeddelka ka hadhay baa idinka hadhay in cadaadiska iyo waxa weey tacaddiga muddada dheer la idinku soo hayay ee xukuumadda xisbiga kulmiye idinku soo haysay ee xaqiini lagu dulmiyay waxa idinka hadhay inta waxa weyn xisbiga wadani uu talada qabanayo qabiilinimo deeqo dhammaanteen Soomaaliland oo dhan baan la hadlayaa qabiilinimo deeqo rag baa maanta qabiil ku ololeynaya habara walay war habara wal horaa lagu codeeyay habara wal horaa waxa weyn loo siiyay waxa weyn kalsoonida maanta laakiin waxaanu codeynaa waa qarannimo ayna deeqaysa keena cilaaya joogiyo keena saylac joogaba waxa weyn qarannimo ayna deeqaysa marka walaalayaal waxaan ku baaqayaa inaan nabad ku codeysaan nabadna systemka hore aynu ku bedelno iyagana waxaan ugu baaqayaa xukuumadda xisbiga kulmiye iyo waxa weeyaan iyo xukuumaddiisaba in ay si nabad ku wareejiyaan marka maanta doorashada lagu dhawaaqo si nabad ay ku wareejiyaan